kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo goob kasta joogtaan. Caawa waa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore, barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore. Caawa waxay garabkayga fadhiya mid kamid ah hal-abuurada da'da yar ee ku sugan deegaanka Fathia Aadan Australia ayaa inoo gorfayn doona mid kamid ah heesihii hore. Heestan oo la yidhaahdo magaceeda Ixtiraam, isla markaana uu sameeyey Baanbare Maxamed Fidow oo hore ugu liqeysay Xabiibe Xasan Tooxow ayaa uu inoo kala dhigi doona, isla markaana inoo macnayn doona macnaha guud iyo waxay xambaarsan tahay heestu. Ugu horreyn soo dhow Fathia. waa marka koowaad goobta idaacad media aan ku noqon marti aniga oo jecel inaan waqtiyo badan kala kusoo noqdo la yiraahdo laakiin markii koowaad adina waxaan ku leeyahay mahadsanid ma wax kale ma garanayo oon ka ahayn mahadsanid ruuxa bilaadanka markuu sharaf ku yeelo ee waxaad ahayn uu ka dhigo uu jecel inuu ku weyneeyo adna wax fiican aad ku tiraado mahadsanid oo mahadnaq ugu celiso sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xidhan idaacad media waxaan leeyahay halka ka sii wada sida fiican ay ugu xidhan tihiin barnaamijkan idaacad media anu si fiican baan ugu xidhanahay uguma xidhin kaliya inaan saaxiibanahay laakiin waxaan ugu xidhanahay in xeelad baan ka faa'iido aniga idana haddii la yiraahdo waxaan isku dayi doonaa inaan barnaamijyo badan oo fanka ka shaqeynayaan inaan goobta kusoo kordhino sida uu sheegay mahad caawa waxaan qaadaa dhigaynaa hees la yiraahdo Ixtiraam Gobeed oo uu alifay Baanbare Maxamed Fidow laanta ku magac dheer anaystiisu qaadana Xabiibe Xasan Tooxow ee ku luqeysay heestan waa hees aad u macaan marka aad fiirsato nuxurka midhaha ku jira iyo laxanka saaran sidoo kale muusiga loo garaacayo oo waxaan kala dhicin marka bal intaynaan heesta inaan qaada dhigin aan midhaha soo qaadan waxaan isku daynaa in xogaayar muusigeeda kamid ah ama laba eray oo la socda inaan qaada inaan soo deyno adiga xadiga qaadayo waanadka yiri sooni galaniga adan kaaga soo go'ay heesta dhamma ma taqaanaa waxay jeclaysiiyay ereyga meeriska ah sooni galaniga adan kaaga soo go'ay yacni waa meeris markaad macnihiisa u fiirsato meel fog u taabanaya waa ruux haddii ruux jeclaayeen isku dhacaan ruux ka maarmi karo ama ruux cadhoon karo xitaa haddii ruux kaa cadhoodo waa ruux laban laakiin haddii ruux ka waran kaa cadhoon kari waay waa nafaqad moogta waa ruux nafil caariya wuxuu leeyahay ama adin ku kor dhimanaya ama ku kor noolaan marka waa meeris ugu dhaliyo inaan garanaysaay aan sameeyo aan soo qaada dhigo heestan cidda aan aqoonin Baanbare Maxamed Fidow kulli waa la yaqaan laakiin cidda aan taariikhdiisa aan kooban haynin waxaan isku dayaa bal inaan in yar uga ifiyo Baanbare Maxamed Fidow wuxuu ku dhashay degmada Ceelbuur oo kamid ah gobolada dhexe Soomaaliya tuulo yar oo dhawaalaya dir meel u sii dhow oo kale oo miyi ahaan jirtay waliyada caws weyn waxbarashada wax ka bilaabay Muqdisho sidoo kale fankan wax ka bilaabay Muqdisho kooxda ugu horreysay fanka ku bilaabay waxay halgan ama la oran jiray gurwadayaasha waqtigu galna waxay ahayd 1974 sidoo kale waxaan isku daynaa inaan ka yarayno bal waxyaalo kamid ah waxyaalaha xeerka fanku noo leeyahay waxyaalaha inuu faa'iido haddii la isku dayo in laga hadlo fankiga dawladda waxaan karaa dawladda aan fan lahayn ma dhisnaan karayso fanku waxaa la yiraahdaa waa wanaajiyaha iyo toosiyaha marka dawladda markaa jirto weeyaan xataa haddii aan toosin dawladdaas marka wax iskaga difaacdaa ama iskaga celisaa wixii iyada lidka ku ah marka dawladda aan fan lahayn ma jiri karayso oo marka saas ay xiriir u leeyihiin fanki iyo dawladdu sidoo kale ilbaxnimada iyo fanka bulsho aan fan lahayn ma aha bulsho ilbax marka doonaysan bulsho qiimeyso waxa la eegaa inta uu leeyahay fankeedu haddii bulshada fankeedu uu fan sare yahay marka ilbaxnimadeesu way sareysaa laakiin intii bulshadaasi bilaafan tahay lama oran karo bulshadaas ilbaxda eega carabaha kale aad aragtay carabaha kale fanka aad bay naga horeeyaan
aad bayna fanka nooga horeeyaan inkastoo ay Suudaan bas u tahay haddana fanka aad u qadariyaan nolosha fanka nolosha dhammaan fanka kamid ah dadka qaar baa moodaa fanku inuu yahay hees bas fanku laakiin hees bas maaha fanku fara badan yahay nolosha dhan uu ku jira wax kasta oo qurux badan fanku kamid yahay waqtigii uu fanku Soomaalida u gaaray fakta u sareysa ama meesha u sareysa waxay ahayd waqtigii laga soo bilaabay 69 ilaa 91 meelaha waqtigaas ayay noo hirgaleen ama noo keedeen maanta inta fan aynu ama heeso ama riwaayado aynu ku dayano sababta aan soo xushay inaan gorfeeyo heestan waxa weeyaan heesta aan jecelahay iyo abwaanka aan jecelahay aba Bare Maxamed Fiido wax kamid ah intaan ugu jecelahay waxa kamid ah intaan jecelahay Sangu baa kamid ah Maxamed Cali Kaariya kamid ah Axmed Salaam Bidaa kamid ah iyo Xiraawi kamid ah wali aan ugu jecelahay Sangu iyo Bare Maxamed Fiido haddana Bare wuxuu kamid yahay suwayninta aan ugu jecelahay raayusina aan u jecelahay marka si guud waxaan oran karaa bulsho aan iska soo ururiyo dad meel yaalo oo fan lahayn lama oran karo jira weeyaan marka qaar baa iga dhahay in laga yaabo fanku ma wuxuu fanku nolosha kamid maaha ama fanku waa xaraan waliga Soomaalidu fan bay ku soo noolaa jirtay soo jireenka Soomaalidu fan ku soo noolaan jiray gabaygan xataa la tirinayo qurux badan fanku kamid yahay bilaa muusiga marka muusigu wuu fara badan yahay ama marka fanaanada qaada Xayba Xasan Tooxo wax kamid tahay fanaaniinta aan ugu jecelahay eega Xasan Salabaan Tabeec iyo Xasan Salabaan Tabeec oo kale iyo Xasan Aadan oo kale Cumar Dhulo oo kale waa fanaanad u cid macaan laakiin dumarka oo kale marka la soo noqdo waxaan moodaa inaan ugu jecelahay Khayra Daahir iyo Xabiibo Cumar Tooxo Xasan Tooxo oo moodaa inay heesoodu aan si gaar ah soo jiitaan haddii inta kaga gudubno hordhaca iyo yara ifida عامل دعمنتا أبوان تاريخ سيو فانك وحوي هاي والواحد سو كعنا أمس وجود قرينا من قبل كم الأرياء هستا هستا حكوا باللعبتها احترام جوبيدي وأنا أقبل سكو جيني الكشة وحكوا عن وأفكارك عندها حاجة أوشنا كذا اسكيب براي نفل وجوء من هذا ساري وجد أديك أحد القاضي وأنا أتخيلي سو نيجي أدمي قادن كذا سوقا سو نيجي أدمي adaan kaga soo go'ay yaana waa meeriskii ugu dhaliyeen heestan ka sheekay waqtiyo badan oo on maqaal dheer ka qoro oo aan qaadis ku sameeyay waa meeriskii u kalifay soo nigal aadmiga adaan kaga soo go'ay marka waxa meesha ka cadaan ruuxan inuu yahay ruux aan samrinin oo ruuxan uu jecel yahay sinaan ugu tii karin ilaa inta ka dhimanayo marka waa gabay qurux badan oo si fiican loo farshaxmeeyay laxn macaan la saaray muusik macaan la saaray kadibna fanaad cod macaan qaaday waxa xusuusin mudan inuu miraha laxanka iyo muusiga uu leeyahay Bare Maxamed Fiido oo aad moodo inay yar yihiin in awaaniis ku darsaday intaas oo dhanba abaan Soomaaliinta badan waxaad moodaa inay miraha aan curiyaan kii ku darsadaan in laxanku ya darsado laakiin awaan muusiga xataa garaacaya ku yaryahay aad u yaryahay waxa kale oo jira laba meeris oo iyaguna aad qiimigooda ama aad la yaabis marka u fiirsato waxa weeyaan sidaad iga gashaan ogon urka ku hayaay afar goosba waxa iga daran aabigi bax marka ay leedahay sidaad iga gashaan ogon urka ku hayaay afar goosba waxa iga daran aabigi bax marka afar goosba waxa iga daran ba aabigi bax marka afar goosas ay u yahay ma qofta intuu ku guursaday ka tagay ilaa iyadu waxa leedahay gabadh baan moogta marka awaanku gabadh matay moogta marka intuu guursaday ayuu ka tagay marka waxay leedahay waxaan ka xumaayba adina cidbe yaana caram qof waxaan ahay iga carma laho waqtigeeda iga ciyaartay waxyaalahaas wadin laakiin waxaan ka bixi kareynaa inay tahay eriyada u gaarka ah waanka inuu soo macnihiisa u garanayo si gooniisa u garanayo kamid yihiin marka sidoo kale waxaa jira qayb kale oo midhaha kamid oo hadii soo qaadan oo kale waxay tiraahdaa qofka biyo ag yaalan haddana ooman baanahay qofka biyo ag yaalan haddana ooman baanahay idishay hadmu iman nafsaad urustaa weyn idishay hadmu iman nafsaad urustaa weyn inta kale haddaad tahay aqlaa la isku dhaafaaye
يعني waxa leeyahay haddii aad indhagarad aqli leedahay yani maskax ku jirta indhagarnimo oo ah oo falsafnimihii aqligii baad malaha kaa xumaaday oo kaa gaabiyey ay malaha qoftu leedahay waxay leedahay oo mansoore waxay ku leedahay oo mansoore maad iga tagteen oo intaad beerto yani goob hayri mana cidla intaad i keento ood igu awood garanaysaa jacayl igu abuurto kadib ma iga cartay ma leedahay nafli ugu aaminay adaa saaray oogada adiga axdiga qaaday waan adkan yiriye si oo niga laad miyadan kaga soo go'ay marka macnaha wax ku taa ka fahmaysaa inay heestu tahay hees nuxurkeedu yahay qiimaha jacaylka ruux hadduu ruux si dhab ah u jeclaado inuu ka maarmi karin hadday isku dhacaan hadday isku xanaaqaan hadday si walba yidhaahdaan waxaad moodaa inuu noqonayo wax aan garanaysaay aan ka maarmi karin sidoo kale eego kale iminka waxaad moodaa inuu fankiiba uu sii dabar go'ayo inkastoo jiraan fanaaniin aad u tayo fiican oo heesooda aad u macaan yihiin iyaga oo ay moodo inay bilaa dowlad yihiin oo bilaa taageero yihiin haddana inay aad u dadaalaan sida waxaa kamid ah xariir axmed oo kale ood moodo sanadka inaan maqlaad moodo haddii aana ismoosiin inuu ku guuleysto bilada fanaanka ugu fiican Soomaaliyeed South Africa waa Soomaaliyeed sidoo kale nimcaan hilaac oo fanaan aad u cod macaan oo kale yurgoonyo oo kale adigu suldaan oo kale waxaa jira dee fanaaniin badan oo jirta oo aad u heesa macaan isla laakiin waxaa jira dad kale oo heesaha ama af Soomaaliga ka yaqaan inta ayada marka si guud horta fanka Soomaalida ama fanka dhanba ayada waa ka haran oo ruux inuu wax aya ku heeso waa kacab ama uu ku hadlo hatta bariga hore fanaanka caytama waxa la oran jiray walax fanaan baa tahay xisho laakiin iminka waxay moodaa fanaaniinta inay ayada ku horsadaan eegade waxa fanaaniin oo aba ninka la yiraahdo masaxno ninka dhahan oo kale ninka la yiraahdo muxuu ahaa kiyaray muxuu ahaa isagana dhiko badnaa raxmarka socdaal oo kale kii kale sana soo xis shirin boy oo kale qofta dhahan maxay balaar oo kale dad noocaas oo u badan reer Muqdisho oo ay moodo fanka inay qaybta cawaanka ka yaqaanaan ayaa waayahan dambe in wareeriyay marka fanaanku waa inuu soo diiya xataa haduuna bulshada loo horimin karin wax uu loo horimin wax macna leh oo murtaa oo yaani kaydka gala fa loo horimaado waxaan ay ahayn laakiin aad tiraahdo inta timaado tiraahdo macawis iga dhacday waxaas ma fanba macawis iga dhacday xataa xageed waxa xaguu ku socda marka eeg haduu jiri lahaa sida traffic u qabto mataqaana baabuurta khalka gasho kale haduu jiri lahaa ruux fanka qabanay dadkii ku khaldamo kale eeg waxa Soomaalidu ugu badan waxa loo xirlahaa fanka xabsiyada waxa jiri lahaa xabsiyada yiraahdo xabsiyada lagu xiro dadka fanka biiya oo waliba lagu wada xukumo laakiin taas ma jirtee imika waxaan leeyahay dhalin joogta inuu ay naga qabtaan dadkan fanka ku ciyaaraya oo kale oo isagu fiyu un buu xilnayaa iyo dad boqol meesha un buu xilnayaa habooqan halka like-ta kala ugu bedelay maanta ugu bedelay si guud waxaan leenahay inuu fanka noo daayay anaga fanka iska leh haddii fanka caadi ugu jirin inuu iska joogo de fanka ma jirtaan bay laakiin bal caadi noo daayay fanka ilaa hadda uu nool yahay dhawaan xataa bug laga qoray aleel baa laga qoray oo sugaantiisa marka loo qaybiyo shanaalada hal meel lagu soo qoray inta kale aan ku jirin marka halkaasaan kusoo koobaya ama kusoo gabagabeynayaa qaada dhigistii heesta ixtiraam gubeed oo in yar oo kooban nooga sheegay jecelahay in bulshadu heesta ay isku dayaan inay macnaheedu u buuxa si fahmaan ereyada oo badan si raadsadaan ma hadow halkaas ka bixi lahaa dhammaan bulshooyinka ku xiran daacad mari waxaan leeyahay ku sii xidhnaada oo ku sii dadaada barnaamijka ka baxa daacad mari si aad wax badan uga faa'iidaan waxaan isku daynaa inaanu qaybtan sugaanta ama fanka kamid ah in barnaamijka inuu kusoo kordhino daacad mari berigii hore waxaad noo jirtay inuu ka duwan yahay barnaamijka ka baxaya in ka duwan yihiin laakiin hadduu alla idmo waxaan isku daynaa inaan barnaamijyo kala fara badan oo qaabilsan noocan oo kale ah inaan soo diyaarino anigana ma noqon doonto markii koowaadeen qoftan imaado ama markii ugu dambeysay oo markii koowaad laakiin markii ugu noqonayso waxaan isku dayaa inaan sii wado ka qaadashada iyo barnaamijyada aan qoftan ka bixinayo duu la yiraahdo halkaas ka bixi lahaa waa maasantii aad iyo aad mahadsan yahay kaasi wuxuu xafiiska Australia oo si fiican maanta noo soo qaadayay heesta ixtiraam uu mahadsan yahay idinkuna waa mahadsantihiin intaan barnaamijka ku kulmi doono maanta waxaan isku daynaa sidaas